بلا مرة ugu soo dhawaad daacad media ku bilaabay magacaaga magacay waxaa dhahay Cumar Maxamed Cali. Cumar aad baan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalayaasha barnaamijka caawa su'aal baan ku weydiinayaa fikradaada sida aragta Dhib ma laha waad weydiin kartaa walaal. su'aasha waxaa koranaysaa waxaad ka mid tahay dhalinyarada soo kaxaysa hadda waxaad ka warhaysaa in badankooda habluhu ay isbedeleen ama midabkooda bedeleen ama ay iscadadeen marka su'aasha waxaa koranaysaa ma yeeli lahayd ama ma guursan lahayd gabadh midabkeeda bedeshay ama iscadaysay Waan yeeli lahaa sababtoo ah dee nafteeda mayna bedelin jirkeeda way bedeshay marka dee ma diideen anigu marka sababta ay raacay sababta dee kolley haddaad tu madow guursato ama haddaad tu cad guursato kolley labadoodu dee ilmo bay ku dhalayaan marka mustaqbalka wax la diidi kara ma jiro calafkan waa wax qoran marka waxaan dhihi lahaa waan soo dhaweyn lahaa xaas fiican oo ka dhigan lahaa adaa mudan ugu horreyn kusoo dhawaad daacad media ku bilaabay magacaaga magacayga waxaa la dhahaa Cabdirashiid Maxamed Shide waan dhawahay Cabdirashiid aad baan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalayaasha barnaamijka caawa su'aal baan ku weydiinayaa sida aragtay su'aasha waan ku soo dhaweynayaa su'aasha aad weydiinayso waan ku faraxsanahay inaan caawa adiga kula sababtoo ah hadda ka hor daacad media waan arki jiray oo waan daawan jiray laakiin caawa inaan fursad kugu helo ama labadeenu kulan inuu dhex maro aad baan ugu faraxsanahay waan ku soo dhaweynayaa mahadsanid su'aasha waxaa ka oranaysaa gabadh midabkeeda bedeshay ama iscadaysay ma guursan lahayd jawaabteeda haddaan ka bixiyo su'aasha aad weydiisay maya ma guursan lahayn sababtoo tahay aniga oo qodobaynaya dhowr qodob 2 ilaa 3 sababtoo tahay marka koowaad qof naftiisa ku kalsoonaan waayay aniga naftayda kalsoonaysan maayo diyaar ma yihiin inaan qof mataqaanay isku kalsoonaan waayay inaan kalsoonaan siiyo qodobka labaadna qofka ilaahay kalsoonaan waayay ee midabku ilaahay abuurka quruxda badan ilaahay siiyay ku kalsoonaan waayay diyaar ma yihiin inaan kalsoonaan siiyo midda saddexaad kale waa la fahmi karaa mawduuc sida uu balaaran yahay haddii la dhaho qof iscadeeyay oo jinsigiisa bedelayna haddii la dhaho sharaxaad ka bixin waqti dheer bay qaadanaysaa laakiin jawaabteeda aan ka bixin waxay tahay maya adaa mudan kolley sharaxaadaan raacay ana way jirtaa sababtoo tahay kolley in la soo keesiya ma dad aan jinsigeen ahayn oo cadaan ilaahay u dhaliyay sababtoo tahay wax walba oo cadaanihi ma falxumo sababtoo tahay kafanku cad yahay waa la necab yahay wax walba madoweyna ma aha falxumo sababtoo ay tahay kacbadu way madowdahay wayna quruxsan tahay waan ku salaamay saaxiib qaali ugu horreyn kusoo dhawaad daacad media adoo ku bilaabay magacaaga magacaygu waa Cabdicasiis Hayb ayaa la yiraahdaa Cabdicasiis aad baan ugu faraxsanahay Cabdicasiis inaad ka mid noqoto ka qaybgalayaasha barnaamijka isla markaana aad noqoto qofkii ugu da'da weynaa ee ka soo muuqan doona amaankeena su'aal baan ku weydiinayaa fikradaada sida aragtay kolley waan dawe furanta su'aal in la isweydiiyo aad iyo aad su'aasha waxaa koranaysaa maxaad leedahay sabab ay u tahay in guurku qaaliyo kolley guurku waxa weeyaan waxa fiican inuu qiimo raqiis noqdo sida suubanihi iyo diinteena ay dhigaysaba laakiin waxaan oran karaa wacdiga dhalinyarada oo iyagu moodayaan guurka qaaliga inuu ka fiican yahay in guurka kale oo magaranaysa raacaya maxaan ku leeyahay adduunka iyo caalamka ayaa keenaya ayaan oran karaa maadaama kamid tahay abayaasha Soomaaliyeed waxaa lagu eedeeyaa inay kamid yihiin dadka iyagu sababta u yahay in guurka qaaliyoobo isla markaana ay doonaan in kasta gabadha uu dhalay in laga keeno geel fara badan ama lacag fara badan marka shakhsiyaanta adigu fiirka maxaad ka qabtaa si gabadhaada ma jeclaan lahayd in laga keeno lacag yar ama aad ka dhinto qiimaha kolley waxa weeyaan diiniyan de marka la eego gabadha waxa weeyaan 15 jir markay gaadho inaad adigu nin u meherso weeyaan mas'uuliyaddeedana adiga leh de marka waxa weeyaan qiimahan adagi wax u faa'iido u leeyahay ama bulshadu keenay ma jirto marka waa ka soo horjeedaa arrinta waxa fiican siduu rasuulku sheegay qiimo yar oo jaban ninkii gabadh dhalayna inuu magaranaysa uu meheriyo ninkii dhaqan kara una wax shuruudaba ku xidhin adaa mudan ugu horreyn kusoo dhawaad daacad media ku bilaabay magacayga waa Cabdinuur Xasan Cabdinuur aad baan ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto ka qaybgalayaasha barnaamijka caawa su'aal baan ku weydiinayaa fikradaada sida aragtay si fiican weeyaan saad ugu faraxsantahay inaad igu soo dhaweysaan ugu faraxsanahay inaad igu soo dhawaado mahadsanid su'aasha waxaa koranaysaa haddii lagu yiraahdo waxaad ka mid tahay dhalinyarada hadda soo kaxaysa waxaad ka warhaysaa in habluhu waayadii u dambeeyay bay midabkooda bedelayeen ama ay iscadeynayeen marka haddii lagu yiraahdo gabadh midabkeeda bedeshay ama iscadaysay guurso ma yeeli lahayd haddii aad tiraahdo jawaabtaadu haa waxaad raacanaysaa sababta haddii aad tiraahdo miina waxaad raacanaysaa sababta waa sax anigu gabadh midabkeeda bedeshay anigu ma guursadeen marka sababtaan u guursanay baa wacday gabadhu mar haddii jirkeeda bedeshay horta qofku ma ogtahay ilaahay ku kalsoonaa way jirkiisa bedelay
naftiisana uu ku kalsoonaan waaye dee naftiisii ilaahay baa hadduu ku kalsoonaan waayey dee anigana haddaan mustaqbal seelana iskuma kalsoonaanayno marka waxaan leeyahay anigu gabdhaha iscadeen waan kasoo horjeedaa mid kale kugu daray haddii gabadh qoyska ka mid ah ay ku siiyaan qoysku oo midabkeeda bedeshaas cadaysay ma yeeli lahayd gabadh iscadayso qoyska hadday siiyaan wallaahi mae qoysku hadday siiyaan horta waalidkuna xaaladda waalidkuna haddii meesha taagantahay waa yar dhib maad garanaysaa qofkii aad kasoo horjeedin meesha tagaya waa dhib marka waxay noqonaysaa hadde kulley inaad xagga xoogga waalidka iska yar saarto oo dhan walba kamartooda wax soo sheegto saasaan u isticmaali lahaa marka kadib si wax kasoo horjeeda inaan kasoo horjeedo marka la arko dee dib baa looga laaban lahaa markaas anigu waan kasoo horjeedaa dumarka iscadeeyey aad maasad ayo adaa mudan ugu horreyn kusoo dhowda cad media adoo kabilaa magacaaga ugu dhawaay magaciga xiis cabdirashiid saalax xiisow aad baan ugu farxsan inaad ka mid noqoto gaqwalaasha barnaamijka caawa su-aal baan ku weydiinaya fikradaada sidaad u aragtaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay su-aasha waxay ka oranaysaa waayahan dambe waxaad ka horeysaa in guurku qaaliyoobay markaa shakhsi ahaantaada maxaad dhihi lahayd waxay sabab u tahay in guurku qaaliyoobay waxaas dhihi karaa kolley waxaa keenaya inuu guurku qaaliyoobo waxaa weeyaan waa dadkan unbaa qaaliga keenaya markii dee ninka isla ekaayeen markuu oo gurigii qaaliyo dee kii kale uu qaaliyeynaya markaa saasaas dhihi karaa saasaa qaaliyeynaya yaad saar lahayd xoogga awoodda yaa saar lahayd waxaan saar lahaa sababaha guri qaaliya miya waxaan saar lahaa dadkan dhalinyarada ah inay ka digtoonaadaan ay iska ilaaliyaan waxaan diinta ku bannaan ayna samaynin baan og saar lahaa maasanta aad mudan